waxaa isfaham darro ku soo dhamaatay dood musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya maanta ku dhaxmar lahayd xarunta golaha shacabka taasi oo si toos ah loogala socon lahaa warbaahinta Soomaalida. Dooda musharaxiinta oo loo kala qaybiyay laba qayb ayaa maanta waxa ku balansanaa in musharaxiintu ay ku doodaan si leef ah 12 musharax halka berina ay dooda ka qayb gali lahaayeen 12 kale. Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sheegay in doodu aanay toos noqon karin maadaama internetku uu maanta ka go'naa inta badan koonfurta Soomaaliya. Qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa ku dooday in si ku talagala loo joojiyay in doodu ay noqoto live. Inta kadib guddiga doorashada madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in dooda musharaxiinta gabi ahaanba la joojiyay sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashada Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. maanta waxay ahayd maalintii loogu talagalay in madaxda soo dalbatay inay madaxweynayaal noqdaan murashaxiinta ay yimaadaan halkan oo ay dadka la hadlaan oo ay kala hadlaan telefishinada. gruubkii ugu horreeyay laba qaybood baanu qaybay laba kooxood, koox aroorta ah iyo koox galiga damba. kooxdii aroortu si xishmad leh ayay u yimaadeen, halkii loogu talagalay bay yimaadeen, waxaana ay arrintu haydeen telefishinada laga gudbiyo live. leewana waxaa loogu talagalay inay dadka la hadlaan. dad kale oo halkan jooga oo ay la hadlayeen ma jirin, dad kale oo su'aalay waa weydiinay kala gooniyo halkan oo audience ma jirin. waxaa loogu talagalay telefishinku inuu live noqdo oo ay dadka Soomaaliyeed ee adduunyada daafaheeda gido iyo dibadba jooga inay la hadlaan bay ahayd. waxaa noo suuro gelin waayay internetka aan shaqaynayn oo aan soo hubinay maanta si fiican uga dhereegsanahay inay ahayd arrin technical oo qofna shuqul ku lahayn. waxaan soo ogaanay waxa weeye xalay iyo saaka inaanay baanu ku shaqaynayn, inaanay internetku shaqaynayn. halkan iyo Nairobi iyo Tanzania ba ayaan soo hubinay. anagu technical people ma yihiin, laakiin waxa la noo sheegay la noo cadeeyay and sabab ma haynaan oo taa u beenina ma hayno. la noo cadeeyay in arrintaasi tahay arrin cid walba ka dambaysa oo aan ahayn arrin qof sameeyay ama laba qof sameeyay ama wax aan sameeyay. waa arrin technical ah oo internetku go'ana. sida daraadeed waxa aan soo jeedinay arrintaasoo isku day wanaagsan ahayd inaan soo gabagabayno oo joojino oo ay halka ku ekaato. doodan ayaa waxaa ka cudur daartay markii horeba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ku maqan dalka Itoobiya, waxaanay musharaxiintu inta badan ay u arkayeen inaanay macno badan sameeynin maadaama uu maqnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Saciid Axmed, telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.